السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة iyo muuqaal cusub iyo isku soo noqosho wanaagsan iyo sanad qurux badan ayaan rajaynayaa dhamaantiin meel kasta oo adduunka ka joogtaan waan maqnaa in muddo ah ama in badan markaasi intii sanadkan u dhameysay isma aynaan arkin soo gudbinta muuqaaladii iyo mawduucyadii iyo waxyaabahaas oo idil way hakadeen intii u dhameysay sanadkii hadaan soo dhaafnay balse laakiin waxa aan isku dayayo xoog saaraya ama qorshaha sanadkan cusub kamida in aan dib u sii bilowno ama markaasi si mawduucyadana kanaalka kaga hadli jirnay dib u sii bilowno xoogan saarno sanadkan sanadadii hore inuu ka duwan yahay in rajaynaya oo markaasi uu ka guulabato markaasi ka qurux badnaado oo ka barwaaqayo markaasi barar badnaado adigana sidoo kale waxaan ku rajaynayaa qorshayaashaada iyo ahdaaftaada leedahay sanadkan in markaasi Allah ku rumeeyo qof waliba waxa uu leeyahay qorshayaal iyo ahdaaf uu dejisanayo sanadkan soo bilowdiisa markaasi uga mid dhaliyo riyooyinkiisa iyo rajooyinka uu leeyahay sanadkii hore waxa jira waxyaabo aynu qabyo kaga tagnay waxyaabo markaasi qabyo inaga noqday oo aynu u baahnayno dhameystirno sanadkan aan ka soo gudbo intaasi kanaalka sidaad aragtaanba magacii hore waan ka bedelay sidoo kale mawduucyadii aan kaga hadli jirnay badankooda waan bedelay taasi aynu dhameysay balse laakiin waxa aan halkan ku soo gudbinayo oo kugu sheegayaa in xoogga iyo awoodda sanadkan saarno soo gudbinta mawduucyadii oo ay dad fara badanina ay dalbadeen markaas in badan ay iga soo codsanayeen inaan dib soo bilowno ama aanan joojin mawduucyadii iyo muuqaaladii aan ku soo gudbin jirnay kanaalkan inkastoo badankoodu ama gabi ahaan bay dhahday ay u badnaayeen teknolojiyada hadana waxaa jira markaasi dad kale oo u baahan waxyaabo kale in lagu soo kordhiyo channel saas darteed waxaan go'aansaday in qorshaan u sameeyo sidoo kale jadwal u sameeyo mawduucyo kale gaar ah oo kuwii hore ka duwanaa sidoo kale inaan ku soo kordhiyo si kastoo ahaataba jadwalka markaasi uu kanaalka ku socon doono waxa aad markaasi ka eegi doontaa ama kala socon doontaa qaybta dambe ee ka farka ama sidoo kaleba aan ku sheego usbuucii laba mar oo kaliya ayaan muuqaal soo gudbin doona ama laba cisho oo kaliya aan muuqaalada soo upload gareyn doona ama aan markaasi kanaalka soo gelin doona waa isniinta iyo khamiista sidoo kale isniinta waxa aan soo gelin doonaa oo muuqaalada ku saabsan teknolojiyada waxbarashada horumarinta nafta iyo markaasi waxyaabo quseeya dhinaca digitalka iyo nolosha casriga sidoo kale arbacaan khamiista waxa aan kaga hadli doonaa mawduucyo ama muuqaalo ku saabsan dhinaca iyo madadaalada ka sheekaynta qisooyinka sidoo kale sharaxida ama soo bandhigida qisooyinka aflaamta qaarkood sidoo kale iyo waxyaabo kale oo madadaal oo lamida saas ayaa markaasi ay u socon doonta sanadkani waa sanad bilow ah markaasi oo waqtigiisii ama bishiisii ugu horeysay sanadkani waxa loo baahan yahay in bedel weyn aad samayso sidoo kale aad noloshaada isbedel weyn ku samayso si markaasi sanadkan iyo kii aad soo dhaaftay ama kuwii kasii horeeyay ayna isku mid iskaga ka noqonin waxaa jira waxyaabo aad u muhiim ah oo loo baahan yahay inaad xoogga saarto oo aad qorshayaasha sanadkaagani aad ku darto si kastoo ahaataba bal halkan yar aan kugu faa'iideeyo 3 qodob oo muhiim ah oo loo baahan yahay inaad ku darto qorshaaga sanadkan way jiraan qorshayaal kale ama ahdaaf kale oo aad leedahay balse laakiin in ay ka mid noqdaan ayaa markasta muhiim ah 3 qodob waan ku soo koobayaa adiga ayaa markaasi ku dabaqi doona qorshaaga iyo markaasi sida aad u qorshaysatay sanadkan qodobka koobaad waxa weeyaan inaad wax isbarto waxbarashadu imika casri ay isku bedeshay berigii hore wax la baran jiray bug ay la qaadan jiray iskuul iyo dugsi ay la tagi jiray sidoo kale markaasi waqti fara badan ay lagu qaadan jiray balse laakiin imika dunidu casri ay noqotay qof walba isaga wax isbari kara meesha doonaya wax ka baran karaa isaga oo markaasi aan meelba aadin saas darteed waxaan kugula talinayaa in aad garaadkaaga kobciso aqoontaada kor u qaado wax isbarto qof markaasi aqoontiisu ay kobcdo aad sanadkani noqoto meelo fara badan oo wax laga bartay ayaa jira siyaabo fara badan oo wax loo bartay ayaa jira waxyaabahaas oo idil in aad baadho oo raadiso ayaa loo baahan yahay kadibna aad naftaada wax barto oo naftaada maalgeliso kadib ayaad markaasi wax dheefsan doontaa markaasi waa ay wanaagsan tahay inaad markasta joogtayso wax isbarida wuxuu doona ahaado waxaasi inaad xirfadaha casriga ah maanta dunida lagaga shaqeynayo aad barato sidoo kale in waxyaabo kale oo adiga aad jeceshahay oo ku gaar ah in aad barato oo xoogga iyo awoodda aad saarto gabagabada markaasi waxa weeyaan si guud markaasi aad garaadkaaga iyo aqoontaada iyo cilmigaaga iyo wacyigaaga aad kor u qaado aad kordhiso taasi waa qodobka koobaad qodobka labaad waa dhinaca dhaqaalaha in awoodda aad saarto kobcinta dhaqaalaha iyo in markaasi waxyaabo cusub oo dhinaca
dhinaca dhaqaalahaaga aad samayso oo kor aad u qaado haddii aad bila shaqayd inaad shaqo raadiso haddii aad markaasi ku fikiraysa inaad waxyaabo kale hal abuurto inaad bilowdo aduu si kastoo ay ahaataba haddii dhaqaalahu uu kugu yaraa inaad bilowdo inaad dhaqaalaha kor u qaado inaad waxyaabo cusub aad bilowdo in markaasi mashaariic cusub aad gasho waxyaabahaasoo idil aad bay kugu wanaagsan marka waa qodob muhiima in aad ka fikirto kobcinta dhaqaalahaaga si uusan ula mid noqonin sidii sanadihii hore oo kale kaasi waa qodobka labaad qodobka saddexaad ee ugu dambeeya waxa weeyaan in aad markaasi caadooyinkaaga aad isbedel ku samayso caadadu waa waxa jaangooya habnololeedka qofka ama habka uu qofku u nool yahay oo mustaqbalkiisa nolol maalmeedkiisa iyo markaasi waxyaabahaasoo dhan uu qorsheynayo ama ay u socdaan caadadu waa waxyaabaha aadka ugu muhiimsan nolosha qofka bini'aadamka ah ee xadida ama xakameeya ahdaaftiisa qorshayaashiisa waxa uu ku fikirayo mustaqbalkiisa waxaasoo idil marka waa inaad caadooyinkaaga isbedel ku samayso haddii ay xumaayeen inaad iskaba bedesho haddii wanaagsanay inaad horumariso caadooyin cusub inaad samaysato in caadooyinka xunxun gebi ahaanba aad soo afmeerto si noloshaadu ay hore ugu sii socoto caadooyinkaaga xunxuni waxa ay dabrayaan ama dib u dhigayaan noloshaada marka sanadkan waxaa muhiim ah inaad ku fikirto ood awoodda saarto si aad caadooyin cusub samaysan lahayd kuwii hore aad isbedel ku samayn lahayd markaasi si noloshaadu ay hore ugu sii socoto waa saddex qodob aad u muhiima waxaan rajeynayaa in aad guuleysan doonto insha Allah sanad baraara iyo barwaaqalana uu ku noqon doono sanadkani insha Allah qof walba guul ayaan u rajeynayaa waxa aan joogtin doonaa si joogtaan aan soo gudbin doonaa muuqaaladii aan ku soo gudbin jiray kanaalkan iyagoo waliba kasii qurux badan oo markaasi mowduucyo cusub iyo muuqaalo cusub aan ku soo kordhinay insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doonto mar walbana waxaan xooga saarnaa si qofka bini'aadamka uu noloshiisa markaasi wax uga faa'iideysan lahaa noloshiisa garaadkiisa aqoontiisa iyo wacyigiisa nololeedba uu u kobcin lahaa marka insha Allah waxaan rajeynayaa in suuqyada soo socda si toos ah u bilaabi doono kanaalka iyo muuqaaladii aan soo gelin jirnay saas darteed ku xidhnow sidoo kale isha ku hay kanaalka haddii aad nagu cusub tahay oo ay tahay markii ugu horeysay aad kanaalka soo booqatay fadlan subscribe saar sidoo kale like saar si dad fara badan u sii gaadho aad iyo aad baad u mahadsan tahay tan iyo muuqaalka dambeynta isaga iman doono waxaan ku rajeynayaa guul fara badan